waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis oo aynu kaga rogi doono qodobo ay ka midka yihiin huwantii oo xaalku ku xun yahay dhan walba caalamkii ay Soomaaliland ka soo handaraabtay wadamadii reer galbeedka iyo wadamadii geeskaba iyo dhinaca kale huwantii oo gaashaanbuuraysi la bilowday kooxda Xuutiyiinta oo ciidan badan u soo tababaraysa hubna u keenaysa tirada ciidanka Yemen la geeyay ee Xuutiyiintu soo tababaraysa huwanta ayaynu daaha ka rogaynaa iyo dhinaca kale huwantii oo argagaxiso caalamiya iyo burcadbadeed isku bedeshay iyo qacda ka yeedhay huwantii markii ishii kaliyaatay rajada ka qabeen oo ahayd Itoobiya islahayn ku dhuumaalaysta shalay uu ka soo xidhay madaxweyne Biixi qodobada iyo qodobo kale ayaynu daaha ka rogaynaa ku soo dhawaada وهاجاج aynu ku bilowna barnaamijka huwanta ayaa bilihii ugu dambeeyay gaar ahaan bishii ugu dambeysay waxa ay la kulmayeen jabkii ugu weynaa iyo marka albaab walba oo ay rajo ka filayeen oo iska soo xidhaya wadamada reer galbeedka oo inta badan ay u diri jireen waraaqa propaganda dacaayada u qaabilsanaa ninka hore u ahaan jiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ee kadib khaynul wadanka noqday ee wadankiisii ka goostay ayaa intii aan xilka aan laga qaadin ama aanu de war sacsilayaan oran 8 bilood muddo ku dhow ayuu markaasi waraaqa dirayay oo beesha caalamka u kala dirayay kaasoo dacaayad iyo been u sheegay Soomaaliland waxa suuqayso isagoo markaa wadamada Mareykanka Ingiriiska iyo dhammaan reer galbeedka oo dhan islaha cuna qabatayna iyo mugti talaabooyin adag bay Soomaaliland ka qaadaysa laakiin caalamku waa iska ogaa already in meesha waxa ka dagaalamaya argagixiso caalamiya yihiin oo halkaas kugu ururtay kooxii shabaabkii daacishtii oo halka hoy ka raadsanayay inay tahay caalamku la socdo aduu albaabadii oo dhan way iska soo xireen Ingiriiska ugu dambeeyay oo ku yiri markaas uu cadeeyay oo yiri wax qaatimo la dhaxtaa ma jiraan wax suuq leedii geysay ma jiro Soomaaliland ay ka tirsan tahay gobolka Sool ilaa waqtigii gumaysiga ay ka tirsanayd wax gorgorta gali kara maaha hadii markaas arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kala wadamadii Talyaaniga iyo Ingiriisku kala gumaystay ayuunba wada hadlaya sidii already iskugu biireen ee waxa lagu yiri buuqa yareysta dagaalada joojiyo ku biiro wada hadalada nabad oo markaas wadankiina nabad kula noolaada ayaa lagu yiri Soomaaliland kadib waa kii markaasi ay bilaabeen kooxda markaasi firdhiye waa kii hadlay yiri Ingiriiska waan la dagaalamayna ilaa dayradoogan soo rideena waa kii yiri marka hadaba waxaad ogaataan qodobkaasi barnaamijka Romani kaga hadlay waa isla maalintii marka ama la dhowr maalmood ka soo wareegay ay Xuutiyiinta heshiis la galeen oo garabsaar ay la yeesheen halkaasi oo marka Xuutiyiinta ay hadda hub iyo ciidanba ay marka iska kaashanayaan marka iskaashiga uu soo socday way sii fahansanayeen albaabadu marka iska soo wada xidhayaan shalay waa ugu dambeysay oo qacdi ugu weyneed ay ka yeedhay huwanta Itoobiya meel gudmul ay ka dhigteen oo kolba weerar ka soo bulan Soomaaliland waa kii shalay ka digay madaxweynaha Soomaaliland albaabkana waa la soo handaraabay Abiy Ahmed waxa lagu leeshiyay inuu ixtiraamo markaasi sida ay Soomaaliland buu ixtiraamto qaranimada Itoobiya in Itoobiyana ay ixtiraamto qaranimada Soomaaliland oo markaa heshiiskii nabadeed ee 2001 la wada galay in markaasi sideeda loo hirgeliyo oo markaa la sii adkeeyo la sii xoojiyo ay markaa labada hogaamiye isla qaateen wixii xuduudaha ka gudbayeen nabadgelyada darrada iyo xasiloonida wada iyo argagixisadana inay si wada jiro la dagaalamaan qodobkaasi ayaa hadaba ku noqday laf dhuun gashay huwantii oo waxaynu ognahay xitaa buur madow oo ugu yar oo markaasi huwan kalkaalka ayaa Addis-Ababa maandhow noo soo fadhiistay oo halka doonayay inuu dagaal ka abaabulo ilaa kaas lagu soo handaraabaya wala soo qabanaya isagana barnaamij gaaran ka diyaarinaya ninka oo lagu daba jira dhinaca kale hadaba waxa jirta Xuutiyiinta aan ku soo noqdo in hub iyo ciidanba markaasi Xuutiyiintu ay hadda siinayaan huwantu markii wadamadii caalamka laga soo xirxiray ilaa wadamadii jaarka laga soo xirxiray oo Soomaaliland ay meel walba ka soo handaraabtay oo hadda loo aqoonsan argagixiso yihiin waxa iyaguna bilaabeen inay toos argagixiso caalami u noqdaanba oo waxa ay heshiis la galeen kooxda Xuutiyiinta oo ah niman hadda faraha laga gubtay oo markaa caalamkii oo dhan shaqo ka taagan yahay oo badda casay shiidaya oo markaa gantaalaha ku garaacaya waxay doonayaan aqligooga
in ay xuutiyiinta ku yiraahdaan Somaliland uga dhigaan deena gaala yihiin waxa ogeey dacaayada ay sameeyeen maalmo dhow toolay lahaayeen yuhuudda iyo Somaliland waa isku mid waxyaabo noocaas propaganda ay sameeyeen 15 August sidii Somaliland loo jabiyay yuhuudda loo jabiyay ayay warbaahinta CBB-yadu ay markaas baahinayeen marka waxa ay image bay iibinayaan in ay markaa yiraahdaan Somaliland ba yaani gaala waxyaabaha ay ku caan baxeen nimanka isirka daaroodka ku abtirsaday yaani cadaawada weyn oo hayaan Somaliland waxa la og yahay waqtigiisa yaad barxita la dagaalamayay moogtay Somaliland ama gobolada qoyid leeynayay wuxuu tagay wadamada Carabta ku yiri waa yuhuud nimankan iyo halaysiyo hub waxa lagu leeyahay waqtigan Saddam ba soo siiyay hub khatar ah oo markaas uu doonayay hubkii Saddam Xuseen Kurdiyiinta ku leeynayay waa moogtay gaasas bay haayeen maanaya neef qabato dadka ku qabsameynaya ayuu markaas yaad baraka dalbayso ka dhaadhiciyeen yuhuudna hay moogtay marka tiyo kala kaarkiyo kala la soo baxeen xuutiyiinta u tageen ku leeyeen gaal halkan kula dagaalamayna marka yuhuudda la dagaalamay nasiib waxyaabo yaab kale moogtay marka nimankaas halkaas isku qaadeen bal laakiin caalamka oo dhan way ogayeen dhaqdhaqaaqooga waxaana isku furayaan hadii albaabada isku furaan oo waqtigii markaas ay dambas isku bedeli lahaydun deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan marka gobolka Sool bariga Sool hadda la dhawrayo la dhawri baaya hadii argagax caalami iskaashi la yeeshaan ilaa Mareykanka ilaa Ingiriis cid walba kaas ku duqayn doonta loo aabayeeli maayo marka balaayo kale isku furayaan moogtay marka fudaydka nimanka waa lagu yaqaanaa moogtay gaar ahaan la adeegsanayna oo badan beesha dhubaante iyagoo deegaanka ugu nabad ku sugan oo moogtay dhowr intaanu dagaalka la saacano bilaamin dhowr bilood ka hor ayuunba madaxweynaha Cali Baqay ku soo dhaweynayeen mudane Musabixi oo ay lahaayeen ciidanka qaranka waa in la geeyo cada oo moogtay abaabulka ay hor cararayeen oo ay markaas sida ay Soomaal ilaa hadda madaxweyne Muuse waxa ka dhacay la kulli nimanka shalay caleemaha qoyinku ku soo dhaweynayeen maxabada weyn ka muuqatay ee jibaysna ayuunba markaliya tacufi iyo qabyaalad la geliyay oo nacayb la geliyay oo dawladoodii lagu diray oo moogtay nimankii afka soo duuban jiray 15 sanadood moogtay ku jiray dagaalka mas'uul kasta Somaliland oo la soo magacaabay inay dilaan argagixisadaha ayuunba markaliya tilaydi Somaliland baa dadkeedii dilaysay bal hadda sidee bay Somaliland u dili ninkii u shaqeynayay moogtay dawladda ka tirsan dawladda shaqaaleeda disha oo madaxda disha yaani ilmaha yar sidee jirka aba garan kara oo iska fahmi kara moogtay khidada noocaas lagu kiciyo dadka marka waxaan uga socdaa yaani isku halayn ma laha dadkaasi yaani waxa weeyaan dawladda ay soo jeclaayeen markii ay lagu diray dagaalka la hortagayno ay nagu naymka sanadku dhawaad dagaal ku hayaan imika hadana waxa ay iskilinayaan jibba xuutiyiinta xaloo taraysa oo marka na difaacaysa waxyaabo noocaas taasina waxay keenaysaa marka in dhirbaaxo wadamada caalam imika 20 dawladood bay ku dhow yihiin nimanka marka halka badda cas ku soo baastay inuu difaacaynaay caalam beesha caalamka deema 20 kaas isku soo jeedin doonaan marka halkaas dhigtaan ilaadan Somaliland ba iyo xuutiyiinta afka la isku galeysinaadaan waxa halka ka bilaabmay doonta jabka ugu weynaa oo iyo balaayada ugu weyneed marka faraha la gali doonaan iyo marka masiibo kale oo dadka masaakiinta shacabka aaga bariga Sool ku nool ay u horseedayaan si kasta hata iyagu waxay aaminsan yihiin xulafaysiga waa jibaysan yihiin moogtay maadaama hadda Somaliland xulafo la yeelatay Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya intuba ay xulafo leeyihiin Somaliland yaani beeshii reer galbeedkii beeshii caalamkuna ay la socoto anaguna xulafo samaysan naabay isleeyihiin jibada ayaa la galaysa moogtay